qofa bakaaraha dhexdiisa lagu qabana waa lagu baaranaya mobilka soo bixinta intii u dhaweyd intay cararaan ay xaq istaagaan isbaaru ku dhacay muujeeda isbaaru ku dhacay war miya way badan yihiin ma hal mar lagu soo xoomo tuugadan laga celiyo ma la hadla sidii xoolaha lama banaanka laga istaaga markii banaanka laga istaago qofkii wixii la qaadanay laga qaato oo ay ka tagaan tuugadii oo uu soo baxo dadka soo dhaxgalo ay ku soo xoomayaan maxaa laga qaatay maxaa ka gal wixii laga qaataan laga qaatay war miya marka dadku markay mushkilo muddo ay ku jiraan nafsiyaadkooda iyo maskaxdooda caadi ma noqonayso midaad koor waxa la qiso waxa jirtay xaafadan ayaa waxa jiray hal nin ayaa wuxuu yaqaanay yaasiinka Soomaalidana qof markuu dhimanayo in la yaasiime yaqaanan oo yaasiinka lagu akhriyo qofkii yaasiinka aan lagu akhrin oo dhinta waxay yiraahdaan hebel wuu yaasiin saagay wuxuu la mid yahay neef xoolaa oo aan la gowricin oo dhintay markii yaasiinka hadii lagu akhriyo si fiican ugu dhintay laakiin dan yaasiinka lagu akhrin oo iska dhinto waxa la hebel wuu yaasiin saagay xaafadii hal nin yaasiinka yaqaana maalmaha kamida xaafadii shubana ka dilaacay daacun dhimashadii marka si xoog leh u socod halkii nin marka xaafad meeshan oo laga dhimanayo oo qof sakaraad uu ku jiro yaa loogu yeeraa yaasiin soo oraday xaq uu orday markii inuu qof dhimanayo soo yaasiin asoo qofkiiba aan gaarin yaa xaafadii dhinaca laga soo qali ar yaasiin dhexda intuu istaago wuxuu wallahi ciidan yaasiin laana u dhamaan doonaan yaasiinka baran waayaan anigana keligay ah yaasiin laana u dhamaan doonaan kuwan marka waxaan ku keenay Soomaalida waxay dhamaanayaan jaahilnimo maata maytatan jaahiliya xadiidku man maata walaysa fi unuqihi bay'a asagoo aan bay'o iyo system iyo nidaam aan ka tirsanayn qofkii geeriyooda maata maytatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa si jaahili u dhimanayaa mid ingiriisa waxa limid oo saas oo aaminsan ma faradna fil kitaab meeshan waxba loogama tagin dhaay ya is arkeen xunana kitaabkeen wax ka soo sheega markaas uu kitaabkii wax ka soo sheega ha magacayga ka soo saarba kitaabkiina markaas uu magaca adiga wuxuu cook ayaa la dhahaa watarakuuka la bishoogaysaa watarakuuka cook ma sheegaysa magaci ninka ingiriiska oo meesha ka soo saaray watarakuuka ah ninkii hadda waxaan soo xasuustaa asagana xoori muuna tukan jiray markaas anina wuxuu irniyo lacag aan ku siina tuko uu leeshii halkii salaad lacag uu ku leeshii shan maalmood markuu tukanay yuu lacagteedii si markaas uu maanaad ii tukatay ilaahay aad tukatay waxaan ku siin ma leega leex waraan ma tukan jirin adaa ii diray shaqada ay galiye lacagteedii siiniyo wuxuu waraan waxaan ku siini ma beer baad ii fashay aniga markaa lacag ku siinaay markaas uu masaas ahaa adna maxaad ka qaaday weysilaan aan tukan jiray shantii maalmood weyse ma qabin aniga marka Soomaaliya qodax isku jijabiyay idinka maata maytatan jaahilin ma ka qaadaysaan jaahilnimo baa lagu dhamaanayaa marka si jaahilnimada looga baxo waxa raba qof walba meeshiisa inuu yiraahdo warseen dawlad ku noqonaa midaa safiinaha loo bilaabay hadda koor uu tukan jiray berigii hore markaas safiinaha wuxuu salaad u kala dhigi moogtay si la yaab leh faatixada waxa uu ku akhrinayaa at-tashdiidaat fi al-faatihati فوق الراء وفوق الشين شدك ماشي لساريدن وأنا تصو أخرس الرحمن الرحيم بريجو هرا مركو تكنا وسكت دريري جماعة الرحمن الرحيم مالك يوديش سفيني مركو سعود مي يحور إله يو صلاة أن تكن جري سفينة عقار أجر كمر ربعه يعني لا يقب سنة إبرة يهدو تيهور وحن تكن يعني لا يقب سنة مركا sidaas oo kale day jirto oo dadka qaar ka ilayeen la ilaaha illa allah idin hor waxba kama jireen hadda la idin bilaabaya waxaan soo qaadanay muslimnimadu hadda ma ina bilaaban ninka siyaasiga ah qabiilka wuxuu isticmaalaa oo kali ah jaranjaro uu guriga ku fuulo markuu darbiga saaro oo jaranjartii uu ku fuulo meesha koro uu koro haduu rabo jaranjartii laadu ku kiciya dhulku ku soo ridaaya ilaa koro ku fuulay moogtahay dib dambe loo ma arkaayo korsu ugu maqan yahay kuwii kor isla fuulay marmar inta isku dhacaan korkii laga soo tuura dhulku iimaana jaranjartii oo dhowr sano ka hor dhulka ku riday
yuu soo qaadanaa meeshuu raba inuu saaro marka haddana oo yidhaahdo reerkeenni si xun aa loo galay waxba looma gelin adaa laguu galay maxaa jira markaad kor ku maqnayd adi le dhuuqaay adi ma waxna siisay annaga wadaadada berigii hore ma ogtahay fiqiga akhriya culimada ah kuwa waxaa jiray ka fallaagoobo oo aan waxna baranin oo qubuuraha intay wareegaan wax carra iyo wax ka soo qaadaan oo culimada fiqiga akhris waxay dhigi jireen ruuxan iska dhaafa ويحرم وحا حارانا بناء القبر قبرك إن لا ديسو وتجهيزه إن لا نور هذيو واحد مركز waxay dhigi warna leexda idinku cilmi daahira taqaanaan anna waxaan aqoon cilmi baadil yiraahdo ayaan naqaanaa waxay sameeyaan marka kaas aan waxba aqoonin ee duurka la ku jira qabuuraha wareegaya wuxuu soo qaadaa carru ka soo qaadaa qabri dadka caamadu u keenaa marka wuxuu leeyahay qabrigii oo hebel aan ka imaaday ma dhahay marka waxaan oo bacda ugu jira waa carro horta waxay ka kooban tahay muxtawiyaadkeedu waa carro لكن هو عرضان ما دحاي عرو وحو له war xaq iga leex عر ma rabe laakiin wuxuu leeyahay baashan ma taqaan adiga turaab al dhaha marka turaab maxay tahay waa carradii leeyahay macna carabi le looga dhigay bis ki caamada marka wuxuu leeyahay ma sha Allah maanta wax fiican ali keenay maxaa lagu keenay turaab ali keenay turaab maxay carra le loo keenay dhadhanka laga qaadan marka meeshan maamuladan aad maqlaysaan hebelo ah likulli qabilatin fiha amirul mu'minin kooda u jooga waxa leeyahay dadkan reer galbeedka ah عقلي أهان لقى ما عقلي بدنو لكن حي سميان قف كذا فاشل كا وحب أوجين أي جعان قبتان إلى أكن جحد شخص دراد العقل قريان قف كان شقي سنين صومالي حتى عملها تتوارتن عاير الله قرى الله وفاشل مبتاي وحب ما هيست وحب الله قريان العقل السينايا بعدين كان فاشل كا أي جعان قبنايان حتى ينجح إلى أكن جحد أما إنك وحن سمينا إننا قف كان ناجح أيام بالاش كرفينا حتى يفشل سووا فشلوا شاروا حالي ميل توله dad wada indhal ay degan yihiin yaa mid in qaba oo imaaday markaas markay socdaan markuu arko godadka ay ku sii dhacayaan isma hayn karo wuu qaylina war godka ka leex kii uu isku naxay bariga hore intuu iskaga dhaco iska kici jiray oo iska socon jiray wax godka leex dhigi jiray moona jirin way dhibsadeen marka godka leexashadiisa ay dhibsadeen waxayna ninkaan ugu soo biiray ee aan ugu nooc ahayn aan isku nooc ka dhigno maalna meel marka martaqaad uu qabay saaso indhoolayaashii ninkii indhaha qabay lagu sheekaysanaayo bay hal mar dhab intay siiyeen iyo labadii indhood ka bixiyeen aan wada fariisanna marka waa kaas godadka aan ku dhacno aan sii soconno taas marka aqligu ma keenayo xilli ay jiri jirtay hadda waa iska dhaafay oo masaajidada tirada ka batay masaajid miyay yaraayeen mise masaajidada maamulkooda la isku qabsan jiray markaas mixraabkan waa la kala xoogi jiray bari odayaashu way soo gaareen wadaada marka safku toosinaysa imaam meesha ka intuu xagga ku maqnaa istaw ku hay koo yar la inta ka soo baxay uu galay Allahu akbar salaadii ku jiraab sheekhu uu yaabay bas safkiisu dhinac ka galay dhinaciisu Allahu akbar ta ka wadi waa sidii lagu tukaday kaas meesha xooga ku galay marka salaadii lama aqbalay maxaa loo aqbal way salaadiisa dad weynihii uu ogolaan lahaa oo sharciyada uu saa ku yeelaya siin lahaa ayuu ka talaabsaday كو حالي هدافيده والبحنمده هore moogtahay yaa meeshan ceelgaabta jidad kan badan ayuu maray marka inta jidada ka imaada horta jidada ka imaada gadaalna jidada ka imaada dhaxdu socday marka afartii jihaba afar hoon oo baabuur ay kaga soo yeeriyeen markaas dhinac u bood markuu baabuur taagan xaga uu markaas dhaxda intuu iska wuxuu dhahay intuu horan marka haawam laakiin xagaasi beedwaad dilisiada raay noqotaa haadu intuu roorni noqon lahayd laakiin meelahaas oo markay joogto intuu horan u dhaay marka shacabiyana Soomaalidu waxa haysata war walaalayaal hal dhinac naga xukuma hal jid u nagu jeesiya laakiin haday noqoto inta waa laga amray xagana waa laga soo amray xagana waa hadana waxa la isleeyahay shariicada ma la isku xukumo waaba la wareersan yahay goorma la isku xukuma horta soo in la fariista ma aha oo bismillaahir rahmaanir rahiim la dhaho oo la heshiiyo oo dadka iyagoo miyir qaba intay soo imaadaan wax kala qortaan المسلمون على شروطهم مسلمين توحي أي شرط إسكال دكتان إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا